السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. intaan mowduuceena bilaabin fadlan muuqaalka like noo saar sababtoo dhiirigelin bay noo noqonaysaa kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. Ardaygu marka uu jaamacadda dhiganayo laba mar bay dhibta ugu badan soo wajahdaa. Mar waa marka uu jaamacadda bilaabayo, marna waa marka uu sii dhameynayo uu qoraya buugga ugu dambeeya uu jaamacadda kaga qalan jebin lahaa. Marka ardayga uu jaamacadda ku cusub yahay, shuruucdeeda ma yaqaano, nidaamkeeda ma yaqaano, dhibaato badan baa ardayda qabsata, laakiin si tartiib ah buu usoo fahmayaa. Markii aad jaamacadda iska soo diiwaangelisid oo aad xiisadaha usoo xaadir rabtid, waxaan kuu sheegayaa walaal, kaba soo gado, dhar soo gado, barafuun soo gado, nin weyn oo mas-uula iska dhig. Xilligii iskoolka ma joogtid, markaan waxaa la rabaa in dhar qurux badan oo dadka soo jiidanaya aad soo xiratid. lama rabo dhar dayacan ama wasakh leh ama jeexjeexan inaad soo xiratid. meeshu waa jaamacad. anigu ka hadli maayo haddii aadan haysan lacag dhar ah kusoo gadato. haddii aadan haysan taasi ka hadli maayo, dadka haystaa la hadlayaa. waayo jaamacadda waa ku cusub tahay, saaxiibo badan kuma lihid, waxaa rabta inaad saaxiibo ka samaysatid. marka cidna aadi mayso qof dayacan oo dhar wasakha qaba, cidna aadi mayso. taasi waa iga talo. marka jaamacadda bilaabaysid, dhar qurux badan soo gado. dharkii waa soo gadatay, jaamacaddii baa timaaday. mararka qaar waxaa dhici karta in cafeteria la aado breega oo kale. adigana marka cafeteria aad haddaa aragtid qof aan shaah wuxuu ku caba aan haysan, isku day inaad ka bixisid oo dadka aad u naxariisatid. adi beri ka maal haddii aad waxba haysan, ileen mar walba waxba heli mayside, mar bay xaaladdu kugu adkaanaysaa. marka adiga dadka masaakiinta ah waxba aan haysan shaaxa ka bixi. haddii aad awoodidna roodhiga wixii lamida ka bixi ama furunka. qofka aad maalintaa ka fujisay isagoo haysan waxuu shaax ku cabo, aad shaax ka bixisay, qofkaasi qalbiga wuxuu kugu haynayaa wanaag oo dhan, marnaba xumaan kulama soo aadayo. xitaa adiga haddii wax xumaan lagaa sheegayo ama xumaan lagula kacay wuu ku caawinayaa, sababtoo ah mar baad adigu caawisay. markii jaamacadda lasoo galo aad kuliyadii dooratid, kuliyadda dooranaysidna de ha noqoto kuliyadda adigu xiiseynaysid, kuliyad aad jeceshahay oo aad ka miro dhalin kartid, kuliyad aad ogtahay inaad natiijo fiican ka keenaysid. kuliyadaasaa la galaa. laakiin kuliyad saaxiibkay baa kuliyaddaa dhigta baa u galayaa, taasi micno ma noqoto. waa dhibaatada ugu badan ee ardayda qaar ay haysato waaye. xitaa qaar waxay ku leeyihiin gabar aan jeclahay baa kuliyaddaa dhigata, sidaa daraaddeed baa kuliyaddeeda u galay. marka waxaasi muhiim ma noqoto. waxaas hadhow waa ku wareeraysa. kuliyad aadan fahmayn, aadan garan haddaad dhigatid, hadhowdii khasaaraa ka imaan karta. marka kuliyadda aad jeceshahay gal. markii aad kuliyadda gashid oo aad xiisadda fadhiisatid, noqo arday furfuran oo dhaqdhaqaaq leh oo macalinka caawiya. ha noqon arday meesha iska fadhiya oo barasite ku ah. maadooyinkana soo xifdi. markii imtixaan la galayo oo kale, maadooyinka soo akhri, si fiican usoo jilci. maxaaba markii imtixaanka la galaya ah, intaan imtixaanka la gaarin ka hor maadooyinka akhri. tusaale, maanta jaamacadda dhigatay, xiisad baa soo dhigatay, maadada casharka lagu soo dhigay isla caawa akhri oo maalin walba akhri. haddii maalin walba ay kugu adkaanayso, maalinta jimcaha ama khamiista oo kale baa maadooyinka la akhriyaa. intaa lasoo aruursado baa maadooyinka la akhriyaa. way kugu filan tahay. usbuucii mar akhri, jimco iyo khamiis ha noqoto, ama usbuucii maalin walba akhri haddii aad awoodid oo aadan wax kala haynin. lama rabo sida iskoolka oo kale inaad lazy noqoto, lama rabo. waa inaad arday active ah oo soo jeeda oo wax akhrinaya oo dadku ay jecel yihiin, agtiisana laga soo dhawaado. waayo ardayga aqoonta leh ardayda dhan way usoo dhawaataa. xitaa haddii imtixaan la galaayo iyo haddii kaleba waa laga soo agdhawaadaa. waayo qofka markuu aqoon leeyahay waxaa leeyahay wiilka ka agdhowow, isagaa wax ka faa'iidaysaa. markaad xiisadda dhiganaysidna safka hore gal. waayo safka hore markaad fadhidid wax walba waa maqlaysaa, way kuu fududaanaysaa. laakiin asxaabul gadaal ha noqon. dadka gadaal fadhista waxaa la sheegaa in dadkaasi ay yihiin dadka ugu leesisan, waxba ma baranayaan. xitaa macalinku wuxuu sheegayo soo gaari maayo haddii uu fasalku buuq yahay oo arday badan ay ku dhiganayaan. laakiin haddii arday yar ku dhiganayaan, meesha doontaa fadhiisan kartaa. walow markasta aysan gadaal fiicnayn aad fadhiisatid oo horey ay fiican tahay,
laakiin arday active aan noqo casharada akhriya haddii guddoomiyaha fasalka ama galaaska fasalka loo tartamayana isku day inaad tartantid arday dhaqdhaqaaq la iska dhig aniga guddoomiyaha fasalkayga mar iyo laba iyo waa soo noqday waxaan aan idiin sheegayo oo dhan waa waxaan anigu soo samayn jiray maadaama jaamacadda dhameeyay 2 sano ka hor jaamacadda markii la yimaado waxaa jirta waxa la dhaho prestation macalinka ardayda group buu u qaybinayaa dhowr group buu u qaybinayaa group walba mowduuc baa loo dirayaa mowduucaasi soo baarayaan soo qorayaan kadib bay ardayda horta ka soo jeedinayaan marmarka qaar waxaa dhici karta inuu macalinka dhaho ardayda groupka ku jirta oo dhan waxaan rabaa inay soo wada jeediyaan marmarka qaar wuxuu dhihi karaa 2 arday oo ka mid ah soo jeediyo presentationka mar 3 buu dhihi karaa wixii la mid ah tusaale dagaalka labaad ee adduunka macalinka idin diray marka groupka markii la diro mowduucaas waa inaad soo baartaan qayb baa baaraysa qayb baa qoraysa qaybna way soo jeedinaysaa isku day walaal inaad 3 qaybood baa ka qayb qaadatid isku day inaad noqotid dadka baaraya mowduucaas sidoo kale isku day inaad noqotid qofka qoraya isku day inaad noqotid qofka soo jeedinaya waan ogahay waa culays badan tahay oo in lagula qaybsado fiican aniga mararka qaar groupkayga waxba ma soo jeedin jirin ana intaba qaban jiray ana baari jiray oo habeenada qaar ba waxa dhici jirtay in salaada subax laygu aadami jiray sida aan maadada u qoray u baarayo intaan qorayna waqti bay qaadan jirtay markastana waa soo jeedin jiray groupkayga markasta ay presentation leeyihiin aniga waa soo jeedin jiray marka waxay taa iga caawisay maanta markii aan jaamacadda dhameeyay in mowduuc walba aan u baahanahay aan baari karo wax walba u baahanahay waa baari karaa laakiin dadkii waagi hore iga seexan jiray oo waxba aan ila baari jirin maanta waxaa dhici karta in ku adagta si wax loo baaro waxay kaloo iga caawisay markii aan intaan baaro aan qorayo in laptopka markaa wax ku qorayo daqiiqad gudihiisa intaas ilaa kuntumeeyo xaraf ilaa 100 xaraf aan ku qori karo aan boobsiin karo waxaan kaloo ka faa'iiday marka aan presentationka soo jeedinayo ardayda horta aan ka soo jeedinayo in haddii 10 qof ay hor fadhido iyo haddii 100 qof ay hor fadhido isku mid ay noqdaan oo aan ka cabsanayn waan ogahay inaad dhib maraysid laakiin mar walba faa'iido ka helaysaa marka isku day inaad noqotid arday active ah ardayda qaar waxaa jirta oo galaaska iska fadhiya wax iska dhageysanaya kaliya taas looma baahna arday ka qayb qaado su'aalaha macalinka weydiinayo isku day inaad ka jawaabtid isku day in aad xitaa galaas noqotid oo guddoomiyaha fasalka noqotid oo leader u noqotid ardayda macalinkina caawisid isku day presentation inaad qortid inaad soo diyaarisid soo aroorisid oo xitaa soo jeedisid isku day in ardayda asxaabtaada caawisid wixii bareeg aan haysan iyo wixii la mid ah marka qof lagu soo hirto agtiisa noqo ee ha noqon qof baarasayt ah groupka markii 7 qof ka kooban yihiin dadka qaar ba waxaa jira baarasayt ku ah aan waxba qorayn waxna soo diyaarinayn waxna soo jeedinayn oo dhibcaha un iska guranaya waayo groupka markii ciwaanka loo diro iyagoo dhan baa laga rabaa haddii ay ka soo bixi waayaan dhibcaha waa laga goosanaya marka qofna wuxuu rabaa in dhibcaha inta ugu sareysa uu keeno qofna waa iska fadhiyaa marka ka iska fadhi looma seexan karo waa in aad adiga dadaashaa waxaan ku rajaynayaa in aad jaamacadda ku raaxaysan doontid heerna ka gaari doontid insha Allah wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.